ودراك كاميرا halkan aad u jeedaan waa xaafadda Buulaweekiyo ee degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir saakay ciidamada dawladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa booliska ayaa howlgal culus ay ku sameeyeen xaafadaasi waxay ka bilaabeen burburin xoogan oo ay ku burburinayaan xaafadaha iyo guryaha ku yaala halkaasi maadaama ay halkaasi tahay dhul dawladeed oo hore ay dawladda Soomaaliya ee amar ku bixisay in ay isaga guuraan shacabka ku nool xaafadaasi Buulaweekiyo ciidamada ammaanka ee Soomaaliya gaar ahaan kuwa booliska ayaana saakay waa barigii howlgalkaas culus ku qaaday xaafadaasi Buulaweekiyo ee degmada Xamar Jajab ee gobolkaasi Banaadir iyagoona burburin xoog leh ku bilaabay guryihii ku yaalay halkaasi walibana cagta mariyay wixii guryaha halkaas ku yaalay una qaatay cagaf ciidamada ayaana cagta mariyay xaafadda Buulaweekiyo oo ku dhow degmada weyn ee magaalada Muqdisho ee degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir halkaas oo ay ka sameeyeen howlgal burburin ah wararka ayaa sheegaya in dawladda Soomaaliya ay hore halkaasi digniino u siisay shacabka ama dadka ku nool xaafadaasi inay isaga guuraan maadaama dawladda ay u baahan tahay dhulkaasi si ay ugu adeegto ama ay ugu qabato howlaha danta guud ee ummadda Soomaaliyeed ugu baahan tahay laakiin dadka qaar ee shacabka xaafadaasi ku nool ayaa si weyn u dhaleeceeyay arinta dhulkaasi ku aadan burburinta iyagoo dawladda Soomaaliya ku eedeeyay in aysan dhulkaasi dan guud aysan ku qaban doonin balse ay sheegeen in ay ka iibisay ganacsato dana gaar leh waliba halkaasi doonaya in ay arrimo ganacsi iyo dhaqaale ay ka sameeyaan xaaladda goobta ayaa haatan ah mid aad u kacsan dadka guryaha ay xaafadaasi ku noolaa ayaa gabi ahaanba alaabihii guryaha ay u yaalay ee dibadda looga soo saaray waliba haatanba isaga guuray xaafadaasi maadaama dawladda Soomaaliya ay saakay burburin xoog leh ay ku bilowday waxaana la arkayay gaadiid ciidan oo aad u tiro badan iyo ciidamo halkaasi la geeyay si ay u sugaan ammaanka halkaasi walibana waxa la xiray wada kasta oo xaafadaasi gasha si loo sugo amniga xaafadaasi maadaama burburin xoog leh saaka lagu bilaabay dadka ayagoo jiif ay wararka sheegayaan in ciidanka dawladda ay ku kordhaceen walibana ay u sheegeen in isaga baxaan alaabahoodana balaanka ay dhigtaan maadaama uu dhamaaday waqtigii iyo sidoo kale xilligii lagu balamay ay ahaa inay isagu guuraan maadaama dawladda haatan ay doonayso in dhulkaasi dib ugu soo ceshato gacanta dawladda Soomaaliya walibana halkaasi ay burburin ku bilowdo dawladda Soomaaliya ayaa hore sidaan oo kale u burburisay xaafado dhowr ah oo ku yaala magaalada Muqdisho kuwaas oo ahaa dan guud oo ay dad shacab ay deganayeen ku dhawaad 30 sano ee la soo dhaafay dalka ku jiray burburka iyo dagaaladii sukeeye dadkaas ayaa halkaasi u ahaa gabaad iyo sidoo kale hoy si halkaasi noloshooda ay ugu maareeyaan walibana ay u koriyaan caruurtooda iyo dadkii halkaasi ay nolol ahaan ay halkaasi ay ku joogeen dawladda Soomaaliya ayaa lagu eedeeyay bedelkeeda in dadkii ay burburinta ku sameysay guryihii ay degnaayeen ee danta guud ahaa in aysan u sameeynin dib u dejin maadaama ay waajib ka saaran tahay dadka Soomaaliyeed in dawladdu dib u dejin u sameyso walibana ay mas'uuliyadda ay qaado in dadkaas maadaama guryihii ay ku noolaayeen intaasoo sanadood ay burburin ay ku sameysay xaafadihii hore ee dawladdu ay burburinta ka bilowday ayaa kala ahaa xaafadda kalluunka ee degmada Xamarweyne xaafadda Dabdamiska ee degmadani Hodan iyo sidoo kale waxa ay hore dawladda Soomaaliya burburin ugu sameysay xaruntii wasaaradii hore arrimaha gudaha Soomaaliya ee degmada Boondheere sidoo kale waxa ugu dambeysay carwada Taleex oo maalmo ka hor burburin ay dawladda Soomaaliya ay ku bilowday haatan waxa ugu dambeeyay xaafadda maanta ee Buulaweekiyo oo ku yaala degmada Xamar Jajab oo halkaasi burburin lagu bilaabay tan iyo dib u doorashada madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa aad u xoogeysanayay dhul boobka iyo sidoo kale burburinta iyo barakicinta dadka shacabka ah ay ku noolaa dhulkii dawladda Soomaaliya ay lahayd walibana halkaasi dawladda Soomaaliya ay burburin ka bilowday iyadoona sheegtay in danta guud iyo sidoo kale howlaha adeega dawladda Soomaaliya ay ka bilaabi doonto dhulkaasi ay dib lagu soo celinayo balse dawladda ayaa lagu eedeeyay in rag ganacsata ay ka iibinayso halkaasina ay dhaqaale ay ka sameynayso daawada sidee u aragtaa burburinta dawladda Soomaaliya ka bilowday xaafadaha danta guud ah ee dadka shacabka ay ku noolaayeen oo ay ugu horeysay xaafadihii hore ee dawladda burburinta ugu bilowday ee haatan ugu dambayso xaafadda Buulaweekiyo ee degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir wixii fikrad ah faalada hoose ee commenting inoo reeb haddii ay taa markii ugu horeyso muuqaal ku soo gaaro like saar si aan share gareysay saaxiibada kale ugu gaaro waad ku maasantahay daawashadaada